kulan wanaagsan dhammaantiinba waa barnaamijkeennii qubanaha VOA. barnaamijkan oo ay idinla socodsiinayaan anigoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Caashe Ibraahin Aadan. qodobada aan idinku hayno waxa kamid ah dadka ku nool waqooyiga bari ee dalka Nigeria oo qarka u saaran xaalad bini'aadminimo oo halis ah kadib dagaal halka muddo ku dhexmarayay Boko Haram iyo ciidamada dawladda. khubaro ka digtay kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya iyaga oo sheegay in burcadbadeedu ay soo noqon karto haddii aan wax laga qaban sababihii markii hore keenay. shirkadda soo saartay barnaamijku sahlaya inaad dunida booqato adiga oo gurigaaga jooga. qodobadaas iyo kuwo kale waxaad kaga bogan doontaan barnaamijkeena qubanaha VOA ee toddobaadkan. muddo 7 sanadood ah oo dagaal lagula jiray kooxda xagjirka ah ee Boko Haram ayaa waxay u horseeday dadka ku dhaqan waqooyi bari ee dalka Nigeria in ay qarka u fulaan xaalad bini'aadanimo oo halis ah. gobolka Borno ayaa ah kan ugu daran waxaana meelaha qaarkood ay ku jiraan go'doon aan gargaar la gaarsiin karin. wariyaha VOA ee Jika Oduwa ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Maiduguri. dad 2 milyan ka badan ayaa ka qaxay magaalada madaxda Borno ee Maiduguri waxay heleen waxoogaan nabad ah laakiin xaalado kale ayaa haysta. kumanaan ayaa ku nool meelo liita. dumarku meelo bannaan ayay cuntada ku karinayaan. qaarkood dhismayaal madhan ayay degan yihiin. carruurtu qalab duuga ayay ku ciyaaraysaa. qoysasku geedaha hoostooda ayay ku nool yihiin. Boko Haram waa sida libaax keenta ku jira. wayna dilayeen waxyaabihii qiimaha lahaana way naga qaateen gurihii ay naga burburiyeen. wax noo haray male. Maka Mustafa waxa isaga iyo tiro qoysaska ay ku nool yihiin goobtan. waxa uu sheegay in loo soo diiday xeryaha qaxootiga rasmiga ah. ma garanayo sababta hase yeeshee xeradan cidna cunto laguma siiyo. dadka qaar ayaa cunto hela qaarna ma helaan. hay-ad aan dawli ahayn oo deegaanka ka jirta ayaa VOA u sheegtay in dadka dibadda jooga ay ka badan yihiin kuwa xerada ku nool. dad ka badan 13,000 oo qof ayaa goobta ku nool. Zara Aba waxay goobtan ka qaxday 3 bilood ka hor wiilkeedu ururka Boko Haram u qaatay dartii waxayna goobtan ku jirtay muddo dheer iyadoo carruur ayay tayla joogta. weli maan arag mas'uul dawladda ka tirsan oo na caawiyey. hadda xaalka iyagu ma fiicna. taandhooyinkan aad aragtaanna annaga iibsanay waxaan nahay dad nugul oo xanuunsanaya. hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya in abaar ay ka dhici karaan meelo ka tirsan gobolka Borno kaasoo amni darro la go'doonsan. halkanoo magaalo madaxda ah qiimaha cuntada daruuriga ah sida tamaandhada, rootida, bataati macaanka iyo bariiskuba kor bay u kaceen. barakacyaasha iskood u nooleen xeryaha rasmiga ah ku jirin waa kuwa nugul. qaarkood ayaa isku dayaya inay ku noolaadaan caleenta ay beeraha ka soo goostaan. kuwooda ugu liita ayaa halkan la keenaa. waxaa jira carruur nafaqadarra haysa oo neefsashadu ku adag tahay. waxay u baahan yihiin oksijiin iyo dhiig lagu shubo. aad bay qaarkood u xanuunsanayaan. waxaananu ku aragnaa xanuunno badan sida jadeecada, hargabkoo ku xumaada. nafaqadarraa haysa maxaa yeelay cunto ku filan ma helaan. gargaar ayaa hadda imanaya. carruurtu waxay sugayaan baabuurta xamuulka ee cuntada keenaya. waxay qaadayaan heesihii farxadda ee berigii hore ay qaadi jireen. khubaro ku xeel dheer badaha iyo kalluumaysiga ayaa dhowaan ka digay kalluumaysiga sharci darrada ah ee lagu hayo biyaha Soomaaliya. waxaa kaloo ay khubaradu sheegtay in haddii aan wax laga qabanin sababihii markii horeba keenay burcadbadeednimada Soomaaliya ay taasi keeni karayso mar kale weeraradii burcadbadeedu soo noqdaan. wariyaheena Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintan inoo haya. khubaro kala duwan oo si dhow ula socda kalluumaysiga badaha Soomaaliya ayaa wada sameeya daraasado kala duwan oo ay ku ogaanayaan heerka uu marayo kalluumaysiga Soomaalida iyo xitaa heerka kalluumaysiga sharci darrada ah ee ka jira badaha Soomaaliya. waxaanu samaynaa cilmi baadhis weyn annagoo ururinayna kana diyaarinayna warbixinno aanu la wadaagno madaxda siyaasadda
iyo dadka nabadda ka shaqeeya si ay uga howlgalaan in arrimahaasi wax laga qabto. hay-adda secure fisheries ee hoos tagta dalladda one earth foundation ayaa sheegtay in 20kii sano ee ugu dambeeyey uu sare u kacay heerka kalluumaysiga sharci darrada ah. We conducted a report that looked at what is going on with foreign vessels fishing in Somali waters. waxaan diyaariyey warbixin eegaysa maraakiibta ajanabiga ah ee ka kalluumaysata biyaha Soomaaliya. way adag tahay in la yidhaahdo waa sharci darro, xeerar looma samayn amaba lagama warbixin. sidaa darteed waxaanu iskugu wada geynay 3 sifo ee sharci darro, xeer la'aan amaba kuwo aan laga warbixin oo loo soo gaabiyey xarfaha IUU. guud ahaanna waxaan eegnay xaalka kalluumaysatada gudaha iyo kuwa ajaaniibta. badi kalluumaysatada ajaaniibta ahi waxay ahaayeen kuwo sharci darro ah, kuwaasi oo hoos imanaya qaybta IUU-da. waxaan ognahay in kalluumaysatada Soomaalida aan loo barbar dhigi karin kuwa ajanabiga ah marka loo eego xaddiga kalluunka ay la soo baxaan. kalluumaysatada ajanabiga ahi waxa ay kalluumaystaan 3 jeer in ka badan kuwa ay Soomaalidu la soo baxdo, iyada oo badi kalluunkaas iyo lacagtuba ay tegayaan dalalka dibadda oo aanay Soomaaliya gelayn. kooxaha burcadbadeeda Soomaaliya ayaa ku dooda in sababaha ay hubka u qaateen ay ahayd kadib markii maraakiib shisheeye ay burburiyeen qalabkoodii isla markaana ay waayeen meelo ay ka kalluumaystaan. inkasta oo xilliyadan dambe aanay dhicin weeraro dhinaca badda ah, haddana sanadihii 2009 ilaa 2011 waxaa marinada ganacsiga badda ee Soomaaliya ka agdhow halis geliyay burcadbadeeda. hay-adda Ocean Beyond Piracy ayaa waxa ay si dhow ula socotaa dhaqdhaqaaqa ammaan ee badaha Soomaalida, waxaana ay sheegtay in haddii aan wax laga qaban arrimo markii horeba dhiirigeliya burcadbadeednimada inay dhici karto inay dib u soo laabtaan. Somali piracy has gone down from its major high point in 2011. xawligii burcadbadeedda Soomaalida waxa uu hoos u dhacay sanadkii 2011. ma jirin wax afduub ah oo loo geystay maraakiibta tan iyo bishii May sanadkii 2012. ilaa iyo hadda waxaan ognahay ayaa ah kiisaska burcadbadeedka tan iyo sanadkii aanu ka soo gudubnay in ay mar walba jireen suurtagalnimada ah in ay dib isu soo abaabulaan oo ay u soo laabtaan haddii ay meesha ka baxdo dhowr arrimood oo muhiim ah sida roondada ciidamada ilaaliya maraakiibta. dadaallo kale ayaa socda oo ah in la dhiso ciidamada marinska ee Soomaaliya. waxaa jira barnaamij lagu magac daray aasaaska xiriirka badda oo ay samaysay hay-adda caalamiga ah ee badaha. burcadbadeed kala duwan oo laga qabtay badaha Soomaaliya ayaa la soo taagay maxkamado kala duwan iyaga oo qaar badina haatan ay u xiran yihiin. muddooyinkii u dambeeyey waxaa saxaafadda Mareykanka qabsaday muran ka dhex oogmay murashaxa madaxweynenimo ee dalkan Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump iyo qoyska askari muslimiinta Mareykanka ka soo jeeda oo geeriyooday isaga u adeegaya dalkan Mareykanka. laakiin meelaha ka baxsan shaashadaha iyo canaawinta warbaahinta waxa jira kumanaan muslimiin ah oo ku jira ciidamada badmaaxiinta iyo kuwa ka tirsan ciidamada cirka iyaga oo aamusan u adeegaya dalkooda. wariyaha VOA uga soo waranta Pentagonka Carla Babb ayaa mid ka mid ah raggaasi la kulantay. warbixintan ayaynu nooga diyaarisay. gudaha xarunta waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagonka waxaa ku yaala macbad yar oo laga dhisay bartii ay 11 Sebteembar 2001 weerareen dhalinyaro muslimiin xag jir ahaa. muddo imika laga joogo ku dhawaad 15 sano. Daa'uud Akbere waa mid ka mid ah 5 imaam oo ku jira militariga Mareykanka, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya xarunta Pentagonka. salaada casirka ayuu hogaamiyaa muslimiinta Mareykanka ee ka shaqeeya xarunta waaxda difaaca Mareykanka ee ku taala gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington si uu ugu xiro Ilaah. Akbere ma ahan gaashaanla dhexe oo caadi ah. waxa uu ku dhashay kuna barbaaray dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Ghana. aabbahay wuxuu rabay in aan ku biiro ciidamada qalabka sida ee Ghana si aan uga mid noqdo imaamyada ciidamada. kadib waxaan ku guulaystay fiisaha bakhtiyaa nasiibka ee Mareykanka. markaad ku korto Afrika keliya ma aha Ghana, Ameerika waxa ay ku noqonaysaa dhulkii barwaaqada.
waa meel aad rabto inaad aaddo marka inaan militariga qayb ka ahaado aad bay iigu fududahay waxaana i dareensiinaysaa sidii gurigayga oo kale. xirfadiisa ciidannimo ayaa suurto gelisay in xitaa uu ka soo shaqeeyo dalalka ay dagaalada ka jiraan sida afghanistaan iyo ciraaq. mararka qaarna wuxuuba noqdaa qofka keliya ee muslimka ah ee cutubkiisa ka tirsan. markay igu arkaan anoo xidhan dareeska ciidamada qaar ma aaminsanayn in uu militariga ku jiro qof muslim maraykan ah. markay arkaan way yaabaan laakiin way ku faraxsan yihiin. marka uu guriga joogo agbere wuxuu carruurtiisa baraa dhaqanka islaamka iyo akhlaaqda wanaagsan. waa kan wiilkiisa tilahta agbere wuxuu noo sheegaa inaannu darajo fiican ka keeni karno iskuulka. ayadoo dhowaan uu musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashooyinka madaxtinimada maraykanka donald trump uu sheegay in maraykanka uu ka mamnuucayo in dadka muslimiinta ah ay soo galaan ayuu agbere qoyskiisa baraa inay u naxariistaan kuwa kale. dhab ahaantii qaar ka mida waxyaabahaasi waxaa sal u ah jahliga. waxaana mar walba aan arrintan u arkaa in ay fursad ii siinayso inaan dadka wax baro. waxaan rabaa inaan hore u socdo. waxaan rabaa inaan dadka u sheego qisadayda. ma rabo in aniga ay ii sheegto qisadayda. muddo 20 sano ah ayuu u shaqaynayaa shacabka maraykanka, laakiin imaamkan waxba kuma eedeynayo kuwa ku aflagaadeeya diinta uu rumaysan yahay. waxaa sii horumaraya awoodda internetku u leeyahay inuu dadka galaangal u siiyo inay ka dhex booqdaan kombiyuutaradooda amaba telefoonadooda gacanta meelo xiiso badan. haatan waxaa soo baxay barnaamij cusub oo ay soo saartay shirkadda Wolfbert oo aad ka dhex booqan karto kaydka muuqaalada dunida meelaha ugu caansan. wariyaha VOA-da George Buttigieg ayaa warbixintan inooga diyaariyay. dad badan ayaa booqday meelo fogfog iyaga oo dhex maraya internetka, gaar ahaana baraha sida Google Earth iyo sawirro lagu keediyo internetka. adeegsiga farsamadan cusub ayaa mid sii sahlaysa arrintan, sida ay qabto Elizabeth Reed oo ka mid ah aasaasayaasha barnaamijkan. si dhab ah ayaan u doonaynaa inaannu fududayno helista macluumaadkan iyadoo loo marayo farsamadan cusub kadibna aan dadka barayno. haatan dadka barnaamijkan adeegsada ayaa waxay booqan karayaan ilaa iyo 6 madxaf kuwa farshaxanka lagu keediya ah, waxaana ka mid ah kan ku yaala London ee la yidhaahdo Courtauld. dadka daawanaya waxay daawan karayaan sawirada iyaga oo markaasi madaxa dhaqaajinaya oo adeegsanaya aaladda iPad oo barnaamijkani lagu shubay. We are standing before Edouard Manet's last major work, a tour de force. dadka barnaamijkan wax ku booqda ayaa waxaa sidoo kaleeto ay geli karaan farshaxan ama sawirro dhaqdhaqaaq loo yeelay si markaasi ay xog dheeri ay ugu helaan. wuxuu barnaamijkani dadku u sahlayaa in si fudud ay ku booqdaan meesha ay doonayaan haddiiba internetka laga heli karo. waxaa suurtagal ah in aad booqato adigoo sii dhex maraya barnaamijka shirkadda Wolfbert, madxafka Britain ee Natural History ee London, ka New York iyo ka DC. bandhigyadan waxaa lagu duubaa kaamarooyin gaar ah oo awooddoodu sarrayso. waxa ugu yaabka badani waa marka kooxdayada injineerada ah ay helaan macluumaadkan oo ay kala shaandheeyaan oo ay haddana isku xidhaan oo ayna dareensiiyaan sidaynu meesha u dhex joogno. haatan barnaamijkan waa mid bilaasha, laakiin marka tirada adeegsata ama sawirada loo sii maro ay bataan, shirkadda la yidhaahdo Wolfbert ayaa waxay qorsheynaysaa inay dadka ay markaasi ku dalacdo lacag aad u yar. intaas ayaan ku joojinaynaa barnaamijkeennii qubanaha VOA ee toddobaadkan oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. haddii aad doonaysaan inaad fikir noo soo gudbisaan amaba aad barnaamijka la soo xiriirtaan noogu soo hagaaji emailkeena qubanaha@voanews.com ama boggeena Facebook. intaan toddobaadka dambe kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.